ganacsatada Soomaalida maxaa ka qaldan? Waxaad arkaysaa bisha shanaad isagoo taajir ah oo lacag badan haysta, afar xaas qabo, nolosha u fadhido. Markii la gaaro bisha November, 15 sano ka hor meesha uu nolosha kasoo bilaabay ayuu taagan yahay. Marka xaggee wax iska qaban la'yihiin ganacsiyadooda maxaa ka qaldanaysa? Caawa barnaamijka ayaan ku faaqidi doonaa. Ganacsatada Soomaalidu horta waa laba qaybood. Qayb waxay sameeyaan services, sameeyaan adeegay sameeyaan, kuwana waxay sameeyaan badeecay sameeyaan. kuwa badanaa service-ka sameeyo adeegyadooda badanaa way u toosan yahay, khasaarahoodana ma badna. Laakiin kuwa badeecada ka ganacsada wax badan ayaa ka qaldan. waxaad arkaysaa baqaar ama dukaan. Ninkan wuxuu leeyahay baqaaro iyo dukaamuu leeyahay. Lacagta uu haysto waa 1 milyan oo dollar. Marmarka qaarkood 1 milyan way ka badan tahay. Lacaga aad iyo aad u badan ayuu haystaa. Haddana dukaankiisu ma lahan systemka fire protection. Ma ogtahay adduunyadu waxyaabaha ay aadka ula dirarto waxaa ka mid ah dabka. Iminsaa maqashay waxaa gubtay suuqa Bakaaraha, waxaa gubtay suuq Bacaad, waxaa gubtay Xamarweyne. Haddana Soomaalidu waxaa waaye waxba wax cashar ah kama bartaan. Dukaanaad arkaysaa waxaa ku jirto lacag aad iyo aad u badan, laga yaabo inay ku jirto 500,000 oo dollar, waa nus milyan, amaba waxaa ku jirto 1 milyan. Mararka qaarkood way ka badan kartaa. waxaanu waa badeeco. Haddana ma haystaan hal sanduuq oo sanduuqa debdemiska xataa ma haystaan. Haddana ma ogtahay inta ay dhaqaalaha haystaan waxay isku diraan, dadkay isku diraan. Tusaale ahaan oo kaleeto waxaa u tegaya nin qaraabadiisa u tegaya, wuxuu dhahayaa niyahow waxaasaa iga qaldan, marka waxaan rabaa xaajiyow. Waxaa la dhahayaa ma ogtahay xaaji isagoon xataa xaj ka tegin, xaajiyow waxaa la dhahayaa waxaasaa iga qaldane xaajiyow inaa ila xalisidaan rabaa. Markaasuu wuxuu dhahaa niyow xaajiyow, niyow problemka ku haysto waxaa u malaynaa inay tahay adiga salaada ma dukatid. Marka wuxuu dhahayaa problemka niyow ku haysto waxay tahay waxaa u malaynaa inaa salaada aad dukan. Ma ogtahay mansabka iyo maalkaba Ilaaha bixiyo. Ibni aadankana waxaa loo siiyaa in lagu imtixaamo. Marka haddii Ilaahay risqiga ku waasiciyo, haddii Ilaahay hanti badan ku siiyo, micnaheedu ma ahan dadka inaad wax dheer tahay, ma ahan dadka inaad cibaado dheer tahay, ma ahan. Kan faqiirka ah Ilaaha ku imtixaamayo gaajada iyo nolosha. Laakiin kan taajirkana asagana sidoo kaleetood Ilaahay wuxuu hantida u siinayaa inuu ku imtixaamo, uu ogaado hantidaasi muxuu ku samayn doonaa. laakiin asaga kuma fikirayo. Wuxuu u malaynayaa bini aadanka ismahadintiisa badan. Wuxuu u malaynayaa inuu ka wanaagsan yahay dadka dhan. Dadkaani suuqa kula joogo waxaa laga yaabaa inaad isku badeeco iibisaan. Waqtiga adiga aad soo gashid uu soo galaa, waqtiga adiga aad ka baxdidna wuu ka baxaa. Mararka qaar waxaa laga yaabaa adiga ka dambe inuu dukaankiisa xirto. Marka adiga maxaa dheeraan kartaa ninkaas? Marka wuxuu u malaynayaa in waxyaabo kaleeto ay jiraan, laakiin ma ahan. Hantidu waa imtixaan, qofku waa lagu imtixaamayaa. sida loo ganacsado Soomaalidu aad ay u garanaysaa, laakiin sida looga hortago khasaaraha iyo waxyaabaha soo gaaro ma garanayaan. Hadda suuqa Bakaaraha waa aragtay imsa mar ayuu gubtay, xisaab ma lahan. dhowr mar uu gubtay. Haddana haddii aad dhexdiisa tagtay ma arkaysid hal system oo debdemisa oo suuqa dhexdiisa ku yaala ma jiro. Suuqa Bakaaraha ma interlog u baahan yahay mase wuxuu u baahan yahay system fire protection ah. Markuu dabka uu dhaco, tusaale ahaan kale hadduu meel yar uu dab ka kaco, waxaa lala soo ordaa, waan garanayaa, waxaa lala soo ordaa baaldiyada biyaha iyo ciidda lala soo ordaa. xataa hal sanduuq ma iibsan waayeen, hal sanduuq
oo ah sanduuqa loogu talagalay in dabka marka uu bilaabanayo lagu damiyo ma iibsan waayeen. marka waxaa la rabaa ma ogtahay caqliga inuu shaqeeyo mararka qaarkood. markaasa waxaa loo wacayaa shirkadda Hormuud, waxaa loo wacayaa gobolka, waxaa la dhahayaa gobolka mar hore la wacay mana soo gaarin aa la dhahayaa. magaaladu waad ogtahay jaam badanaa ka jiro, marka intuu ku soo gaarayabo adiga magaala suuqa barka bar waa gubatay. shirkadda Hormuud waa shirkad bixiso adeeg bixiso waay. marka shirkadda Hormuud oo adeeg bixiso ayaa leh baabuur dabdamisa leh. adigoo badeeca iska leh maxaa u lahaan weysay? waxaa la rabaa ma ogtahay caqliga inuu shaqeeyo. marka ganacsiyada Soomaalida qaabkaas ayay u shaqeeyaan. waxaad arkaysaa bisha shanaad ninka isagoo taajira oo milyaneer ah. waxaad imaanaysaa bisha 11aad ninku waa faqiir 20 sano ama 15 sano ka hor meesha uu nolosha kasoo bilaabay ayuu taagan yahay. haddana maskaxiyan ma aqbali karo. marka bulshadana horu iskugu diray, dhinacu uga baxaya, reerihiisu waa duduminayaa. waxaad arkaysaa isagoo meel gooniya fadhiyo isla hadlaya. marka bulshada waxay dhahaysaa marka ninkaas maxaa ku dhacay? ninkaas wuu qasaaray, hanti badan oo haysan jiray laakiin wuu qasaaray. waxaana qadar waaye wixii kugu dhacay adiga 1000 sano ka weyn yihiin, laakiin waxa wanaagsan waxa hadday maanta kugu dhacaan inaad berrito aad xalkeeda aad haysan kartid. wixii kugu dhaco waa inaad cashar ka barataa. maan waa igu dhaceen waan ka gudbaa kaliya ma ahan, cashar waa inaad ka barataa oo marka kaleetood aysan kuu soo laaban. marka waxaa la rabaa yacni in adduunyada dhan way leedahay system dabdamis, laakiin Soomaalidu ma taqaano. kadib waxaa lagu eedeynaa shirkadda korontada. mararka qaar waxaa la dhahayaa kasaa loo gubay ama saasaa la yeelay. dabka waa waxyaabo adiga adduunyada dhan wuu ka dhacaa. suuqyada ugu weyn ee caalamka wuu ka dhacaa. Imaaraadka wuu ka dhacaa, Sacuudi Carabiya wuu ka dhacaa. dabku waa masiibo, laakiin waxaa la rabaa in lagu talagalo daqiiqad walba ayuu dhici karaa dabka. marka waa in lagu talagalaa inaad haysatid fire protection system dhanaa jiro guryaha lagu sameeyo. haddii dab yar uu uriyo xataa sagaarka qiiqiisa markii uu uriyo biyo ayuu soo daynayaa. marka waxaa ku sahlanaanayso inaad haanta meesha kasoo qabatid aad dabka ku damisid ayaa ku sahlanaanayso. marka caqliga ha shaqeeyo. Assalaamu calaykum.